maana gabina kuwan qaylinaya ee haddan qaylinaya ayaa waajibaadkoodii hore gabay oo marna lahaa media ka lahaa Soomaaliya ikawa halaga soo wareejiyay ku ilaha baa ka qaylinaya shaqadoodii gabay xukuumadda mucaarad baa maamulaysa xaafadda meelku maamulay laakiin anagu anaga shaqaynay xukuumaddiina maalmihii la soo dhaafay waxa lagu dhaliilayay in shacabka reer Soomaaliland ay la xaniban yihiin fiisa Soomaaliya leeyahay oo wadanku gal leeyahay khasab ku qaata Hargeysa ku taga arrintaas sidee loo muuqataa maxay loo muuqataa taata wasiir baan anaga noo qaabilsan Itoobiya waa fasaxday Imaaraadku waa fasaxay Imaaraadku waxa lagu soo dhoofiyaa bilaa ifis subxaanahu wa Soomaaliland saa ergaaga washa loo dhigay ayagana la fariyo maxay loo firi wadaha Soomaaliland weeydi waxaan maamulkan waxaan sheeganay waa bariga oo ahaaso waxa ma jiraan Soomaaliland la fariyo markaad ugu la socdo hadda maxay u tikir waay in afkooda maamuli karay oo balcad maamuli karay oo diyaaradu raacay goboladiisa oo xamar waagi barax ka dhacay la arkayo Soomaaliland wadal horumaray dimuqraadiyada doorasho galay one vote galay barlamaan leh one vote barlamaan ku codeeyay golo deegaan one vote ku codeeyeen maxaan kala hadalaa oo baa ku xidhan waa campaign hadda dadkii xafiisyada gobolada iyo degmooyinka iyo dadkii xafiisyada dadkii baa la soo koobaya dad magacaas way farabaday marka dadkan shaqada hadda laga fasaxay xil dawladeed buu helayaano wasaaradda u shaqo tagayaano anaguna insha Allah u dhabraadeegana laakiin muddo imika ku dhow 3 sano waxa maxaabiis naga xidhantay laascaanood in xukuumaddiina cusub halka sano jirta maxaa maxaabiisteeda ka qorshaysan wax naga qorshaysan meel kasta madaxweynuhu waa la hadlay meel kasta uu la hadlay haday tahay Yurub haday tahay Mareykan daawadayaal waxaan hay wariyay Xamse Cawke maanta waxaan xafiiskiisa ku booqday wasiirka dibadda Salabaan Ducaale saacad wasiir waan kaaga mahadnaqaynaa wareysiga aad maanta xafiiskaaga nagu qaabishay bal xaaladda guud ee dalka nooga war Bismillahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillah Rabbil Aalamiin saxaafadda waan soo dhaweynaya aad iyo aad saxaafadda waayo waa institution oo dad qaranka kamida aad iyo aad baan soo dhaweynaya xaaladda dalku aad iyo aad buu fiican tahay madaxweynuhu si fiican buu shaqeynaya dawladdu si fiican buu shaqeynaysaa wanaga shaqeynana shaqada waxaan ka soo bilownay 3 December baa magaalada saaxiibka loo magacaabay waxaan la wareegay xilka 20 December ma la wareegay madaxweynaha 13 baa la dhaariyay si fiican bay dawladdu u shaqeynaysaa shaqadeeda waxa ka bilowday dalka de waxa ka jiray markaan xilka la wareegnay waxa ka jiray jamhado ciidamo meereediniga technical shayb haysto wixii oo dhan bishii afraad bishii koowaad ayaan shaqada bilownay ilaa iyo shanaad bay noo soo gabagabowday aniga tooka elfeen baan ka soo shaqeeyay ayna baan ka shaqeeyay ciidankii ugu badnaa baan qarameyay madaniga baan wareejiyay ayna baan ku wareejiyay in waad arkaysaa tirada intay ahaayeen la moodayay intay tiradooda wada yaabaysay si fiican waxa kaloo dawladdu deebalowday oo waxyaalaha magaranaysa ciidanka beriga hore marka aynaba aqoonlugud elfeen marka laga qoro galbeed baa la keeni jiray madaxweynuhu ilaahay khayr ha siiye halkii laga qarameeyay ayuu dugsiyadii uga sameeyay dugsiyadii qorlugud buu dugsi ka sameeyay aynaba dugsi laga sameeyay ka bixin oo jiri jiray dib baa loo update gareeyay oo bixin baa tababarka ku jira aynaba dugsi weyn laga sameeyay qorlugud baa laga sameeyay galbeed goryacawliga waxa la keenay jiray darar weyne iyo sheekh iminka halkoodii baa lagu waxeeyay waxay qaadi waayeen baa halkan sheekh la keenay hawshaas si fiican baa u dhacday ciidanku waa madani waxa ka daran oo kale lacagtii markiiba loo bilaabay mushaharkii baa loo kordhiyay 50% ciidanka kuwii aanu qaramaynay oo 6,000 ahaa markiiba mushaharkii baa loo bilaabay maalintii aanu qoranay aan la wareegnay ee aanu tiknikadii wareejinay mushaharkii loo bilaabay asa waliba bishii lixaadna wax loo kordhiyay 50% markaas ciidanka Soomaaliland oo dhan haday tahay police haday tahay military haday tahay immigration haday tahay ciidanka xeebaha haday tahay ciidanka asluubta haday tahay 50% baa la kordhiyay wax weyn oo dawladdu qabatay madaxweynahana dee lagu hogaaminay madaxweynahana qabtay madaxweynaha ololihii wuxuu ku ballan qaaday inuu mushaharka ciidanka kordhinayo uu kaga dhabeeyay 50% mar qura ayuu 50% kordhiyay hadeerna insha Allah wax loo soo wadaa guriga loo dhisayaa oo loo soo wadaa ciidanka la qarameeyna ee madaniga ahana Soomaaliland oo dhan baa ku raysatay nabadii oo dhan baa ku hagaagtay waa ogtahay ceergaabo wanaga imika tagnay suldaankii guud ee warsangalaa yimi oo nabadda iyo madaxweynaha anaguna waftiga madaxweynaha raacay si fiican bay u soo xidhantay waxa yimi ugaaskii guud ee gobolka Awdal labadii baa dee nabadii iyo madaxweynaha iyo ugaaskii guud ee galbeedka iyo ugaaskii iyo suldaankii guud Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam Maxamuud Cali Shire oo dee suldaan soo jireen ah
ayaa halkaa nabaddii ceerigaabo si fiican bay usoo xidhantay si fiican bay usoo xidhantay insha allah inta yara dhiman baahantahana ee ceerigaabana insha allah nabaddii waa u taallaa 24 saac waa taallaa madaxweynuhu ku baaqay hawshaas si fiican bay usoo gebagabowday nabaddaas iminka ceerigaabo si fiican bay garanaysa waftigii tagtaan ka mid ahaa si fiican bay u xasishay saacad wasiir waftiga madaxweynaha sanaag tegay waad ka mid ahayd kulanka wasiirka iyo suldaankana xoogaal baad u ahayd maxay ka wada hadleen labada mas-uul nabad nabad peace and life nabadda iyo waa loola dee nabaddu dee nabaddaasaa laga wada hadlo lasoo afjiro in si fiicanoo dee maxaa sudaanka guuda beeshii oo dhan baaba la socotay sudaanka guud beeshii oo dhan oo dee ilaa baran ka timi oo hadaftii ka timi oo xiingalool ka timi oo ka timi dhahar dee beeshii oo dhan oo yuba ka timi oo intii somaliland intii kalena ka timi oo isu dhammaystiran baa timi beeshii oo isu dhammaystiran baa timi dee nabaddaasaa la qaatay insha allah laakiin calanka somaliland baran ma la geenaya حسب هذا بقى امتحان كبا لقي اذا كبا جوجا لقينيا ولا لقينيا برا صاحب كبا جوجا ولا لقينيا دهر با لقينيا اسكدا براني با دهر با لقينيا سو كي وزيركي كلوميسيغا دهر بوتي وكسو قدبدي waa sida waa socota hawsha madaxweynuhu dhinaca kale beesha Naale Axmed Farin buu dilay adiga sidee kula maqan waa si fiican 24 saac beesha abti alkaalay buu yiri gogoshuuna 24 saac way taalaa waana imanaya insha Allah way imanaya aad wasiir muddo hal sano ku dhowaaday imika wasaaradda joogta inta aad wasaaradda joogta adiga maxaa ku qabsoomay wax badan bay qabsoomay inkastoo hay'adihiisa naga yaraadeen oo dee garanaysa ay yaraadeen hay'adihii oo wanaagsan ay yaraadeen isna wax fara badan ayaa noo qabsoomay hadda ma dhawto dee wax rarnay dad 200 oo qoys baan rarnay waxaan geynay halkaa masallahan geynay dagaalada dhinaciisa waan dejinay raashinkii baan siinay ana faygii baan siinay biyihii baan siinay suuliyadii baan u dhisnay dhul ay leeyihiin baan dejinay waa si fiican waxaa ka daran gadar charity baa iyaduna keentay secondary duus hoose dhexe farsamadii gacanta masaajid malcaamad mch iyaduna haddana waa shaqadii waa la wadaa kuwa kalena 41 guri iyagana daaraa ayaa iyagana loo dhisay wixiiba gacanta lagu hayaa kuwa kalena sidaas leeg ayaan u sameynaa u rarana insha allah oo hadda maleeloo kale iskuul baan waxa ka wadnaa guri weyn oo ay ku shiraan baan ka wadnaa oo hadda dhamaystiran burxaan u gudbinaa wadana fariisan mayno biyahana waa sina barakacayaasha insha allah haddana waxaan aadayaa burxaan aadayaa insha ugu dayay aan u kurgelaya xaaladda nololeed barakacayaasha oo burxoo aad u fara badan ayaan kurgelaya aynaba intaba waa tegaya dhawaan baan tegaya gobolada bariga Soomaaliland qayla dhaan abaareed baa ka soo yeersiyay waliba biyo la'aaneed wasiirka deegaanka ka soo jeeda tahay adiga maxaa kaaga qorshay waxaan uga qorshaysan inaa baaq sii deyno abaartaas oo ay dadku inta kasoo guuraan ilaa Elifin ilaa Xaynaba iyo waxay tegayaan Gaashaamo iyo Mahoolin bay tegayaan iyo Ceel Baxay iyo Bale Haleele iyo Baaldhaye iyo Gorgor bay tegayaan waxaan uga qorshaysan maadaama dawladda isku dhammaystiran aan dee ku dhawaano abaarta ka dhacday waddanka abaar baa ka dhacday insha Allah laakiin ilaahay qafuur raxiimka waxaan ka baryayaa inuu ilaahay roob u shubo ilaahay ayaankaas joogsado saawi dhaqaalaha loo ururiyay abaaraha Somaliland ka jira guddi abaareed baa madaxweyne Cirra magacaabay dhaqaalahaasi halkay ku dambeeyeen goboladii bariga idinka maxay idinka meel yaal waa la geeyay bari baa la geeyay Elifin baa la geeyay Ayna baa la geeyay wax la geeyay Garadag baa la geeyay Xergaa baa la geeyay bari galbeedna waa la qabasiiyay hadda raashinka u dambeeyay 9,000 oo qoys oo Imaaraadku bixiyay waa la qaybshay wixii dambena waa suganaa 9,000 oo qoys oo Imaaraadku bixiyana waa la qaybshay wixii horena waa la bixiyay si fiican baa qorshe loo wadaa insha Allah iminkan qorshe fiican baa la tegaya daabaarta la tacaalo de wax la qabto dadka wax loo qabto dadka wadda wax loo qabto wixii tamartayada la qaban karayo waan qabanana insha Allah tirakoobka wasaaradda wasiir ma noo sheegi kartaa intuu yahay ma inta arrimaha yare qaxootiga sida barakacayaasha mas'uulka ka tahay shaqaalaheeda guud tirakoobkeeda waa imisa maxaa sheegi kari waay ma qof iska fadhiyaan meesha maxaa sheegi kari waay walaa 240 qof baa shaqeeya shaqaalaha gobolada iyo xarunta burca u badan oo 26 baa jooga sana Cergaabo Boorame way joogaan Berbera way joogaan inta way joogaan 240 way shaqaalaha gacantaad ku haysa barakacayaashaas waa imisa waxaas waa fara badan yihiin 7 baa lagu wareejiyay laakiin hadda waan sii yareeyna imika ilaa 70 bay marayaan 70 meelaha ay marayaan marka hore 87 baa lagu wareejiyay dad badan waa ka baxeen magaalooyin badan baa ka baxay digaalaa ka baxay malowlaa ka baxay
إن شاء الله برعنا واحد وأنا كسر إن شاء الله وأنا كسرنا وقرشها يوني هذا كنا maxaad uga saaraysan waxaan uga saarnay dadku inay wax dhaqdaan waxaanu helana waan siinanaa laakiin dadku waa inay wax dhaqdaan dadku inay meesha u fadhiyaan maaha dadku waa inay foof tagaan waa inay kuli tagaan haddee halkaa iskuullada laga wadayo caafimaadka iyo halkaa dee masallaa iyo dadkii barakac ahaabaa kuuligii kaa wastaadiintii kaa iyagaa dhisaya dee way shaqaysanayaan dadku waa inay shaqaystaan oo qofku waa inuu xoogga hadduu leeyahay waa inaanu meelun iska fadhiyin maqaaxi baa laga shaqaynayaa dowladda loo shaqa tegayaa hayadaha loo shaqa tegayaa waa inuu qofku mar hadduu ninka reerka agoonta dee la gelay laakiin reerka ninka ee xaaska ah waa inuu reerka u fooftagaa oo shaqeeya shaqo yaa saacad wasiir marka xilka wasiirnimo laga yimaado waxaad ku magacaabantay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xaafidka ee waddani saynu la soconno saacadihii lasoo dhaafay gudoomiyaha xisbigaasi waxa uu soo saaray digreeto ku kala diraya shaqaalihii iyo madaxdii xisbigaasi uu hore u magacaabay madaxweynaha hadda talada waddanka haya maadaama gudoomiye ku-xigeenka tahay gudoomiye xirsaaranta magaalada tashaday adiga maxaa looga tashan waaya waa shaqadii gudoomiye noogu sarreeye waa shaqada gudoomiyuhu dee noogu sarreeyo isagaa dee hidhkiya isagaa gudoomiyeya anigu dee markaan uu maqan yahay hadda markuu maqnaa oo kale dee waan shaqadii waan wadana laakiin markuu joogo dee shaqadii isagaa madax bannaan taladana dee waa laga leeyahay kala tashan maxay la tashan waaya laga tashaday dee waa shaqadii laga tashaday saan waan wasaaradda loo tashanayo isaguna hadda xisbiga waa naga tashanaya dee waa naga tashaday laakiin dad yow badan oo xisbiga la soo dhabar adeegay in maanta ridaan oo digreeto ku ridaan idinka sidee la muuqata shaqada waa wixii dee golihii dhexe fulintii hoggaankii waxa weeye wixii wakti kastaba kambeynka waa iska dhacdaa dee waana waxaa had iyo jeer waxa haddaan wasaaradaan nahay dadka aanu intaa shaqa abuurka u doonano shaqaalaha u doonano weeye dadkan dad faraa laga qaadayna dee maaha gudoomiyuhuna dee wuu ku wanaagsan yahay inuu ku hagaagsan yahay inuu shaqadiisa dee wato kelmadda way ku hagaagsan yahay leedahay gudoomiyuhu inuu shaqada kala diro shaqaalaha kala diro maya wuxuu ugu hagaagsanaa waaya soo dee gudoomiye xisbiga maaha gudoomiye xisbiga soo maaha dee waa gudoomiye xisbiga waxa weeye dadku dee waa campaign haddeerna dadkii xafiisyada gobolada iyo degmooyinka iyo dadkii xafiisyada dadkiiba dee lasoo koobaya dee magacaabis way fara badnay marka dadkan shaqada haddee laga fasaxay dee xil dowladeed ba way helayaanoo wasaaraday u shaqa tegayaanoo annaguna insha allah u dhabraadeegana wasiir waxaad leedahay dadkan kambeynka kaga soo baxan maya kalmadan soo bixin maya in update lagu sameeyo xibsiga dee magaranaysa waa iska fiican tahay badda hawshaas fiican tahay dad badan markay hadalkaaga dhegeysta xanuunayaan gudoomiye ku-xigeenka arrintaa gudoomiyuhu sameeyey wuuna kula socdaa dadkana waxay noqdeen dad kambeynka lagaga baxay maya maaha saa maaha dad kambeynka laga baxay maaha dad kambeynka laga baxaya maaha waa dadkii soo shaqeeyey waynay shaqaynayaan dee waana xisbigana kamay tegin ee xilalkuma la fudeeyey gobol kastaba dee cid ka shaqayn karta markaa waana maaha dadka habeenka lagaga baxayey waa dadka aan shaqada u doonayno xafiisyada u fadhinay waagii beri noo imanaya aanu qaabilanay shaqaynaya wey waa sida laakiin ma laga yaaba in xisbiyada mucaaradku ay ka faa'iidaystaan dadka shaqada ka tuurtaan iyagu shaqaalaysiiyaan waxba naga faa'iidaysan maaya hay hayaan naga shaqaalaysaa laakiin sacaadatu wasiir haddaan ku weydiiyo madaxweyne cirar hore wuxuu u ballan qaaday in doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay dhacayaan ilaa hadda guddida komishinka doorashooyinka wax ay ku dhawaaqeen ma jirto idinka xukuumadda maxaad ka qorshaysaa madaxweynuhu waa ku dhawaaqay in dhacayaan si madaxweynaha yidhi waa ku dhawaaqay dee tuumayna sugana waana komishinkooda waa shaqaynaya abaar ma jirto abaar baaba jirto waa leeyahay ilaahay abaartan inay kasoo jebiyey madaxweynuhu waa ku ballan qaaday in doorashada waqtigeeda ku dhacso waana sugana insha allah laakiin ma laga yaabaa in dib u dhacdo oo baaqato doorashada wax maqan qaybka lagama warrabi karo wixii maqan ee qayba kama warrami karo waa dembi laakiin madaxweynuhu ballan qaaday inuu waqtigeeda ku dhacso sida waana ku dhacsa insha allah maalmihii lasoo dhaafay waxaa la arkayay wasiir fiqi oo somaliland kusoo weeraraya dhanka hawada oo lahaa maamul ka tirsan soomaaliya arrintaas sidee sima kula adeer inaan afkooya maamuli karayn oo balcad maamuli karayn oo diyaaradu raacay goboladiisii oo xamar waagii barax ka dhacay la arkayo somaliland waa dal horumaray dimuqraadiyada doorasho galay one man one vote galay barlamaan leh one man one vote barlamaan ku codeeyey golo deegaan one man one vote ku codeeyeen dee maxamed kala hadalaa oo baa ku xidhane oo ku xidhan tahay iyo dal caalamku iyo maraykanka meel kasta looga ololeynayo maxaynu fiqi kala hadalaa dee waa ninkaa ooda diyaarad buu raacaa balcade afgooyana ma tegi karee xamarna bar baanu xukumin muxuu xukumaade waxa maaye waa nin iska qaylinayo magac un bilaash ahaye dee markaa fiqi maxaan kagala hadalaa wax allaale waxay jiraa ma jiro
sida mucaaradka iyo sida loogu qaylinayo iyo maamul xumadooda oo adiga arkaya adiga media la socda waa meel xun bay taagan tahay minka ummadina day way ka daashay ummadina way ka daashay ummaddu iminka waxay u soo jeedaa caalamku wuxuu u soo jeedaa Soomaaliland adiga arka mashaariicda adiga arka mashaariicda la dhigay 400 milyan la dhigay adiga arka maalgashiga adiga arkaya sidaan u socono adiga arkaya madaxweynuhu wuxuu dhigayo madaxweynuhu shan isbitaalkii ugu weynaa baa laga dhisayaa maamul daadejin baa la sameeyey maamul daadejin alaale baasaboor hadday tahay kaarkii dhalashada hadday tahay liisanadii ganacsiga hadday tahay maamul daadejin baa la sameeyey barco kale laga sameeyey waa arkaysaa wax la qabanayo hadda maamul daadejinta madaxweyne cirra soo sameeyey ilaa hadda wax fulay ma jiraan haddana kaarhka hargeysa laga qaadanaya ma caynabaa laga qaadanaya war iska daa barco caynabaa laga caynaba miida mad ka daaqo kaarhkii caynabaa laga qaadanaya maamul daadejinta wax sii socota caynaba iska daa barco caynaba kaarhkii dhalashada caynaba laga qaadanaya barcona waa laga qaadanaya hargeysa lagu sameynaya wasiir caynaba gaadhaa lagu geynayaa mashiinbaa yaala caynaba haddii hargeysa lagu sameynayo dadkii hargeysa iman jiray ee beri ka iman jiray iminka caynaba iska diiwaan gelinaya bas baa loo saaraya haddeerna burcaaba dee laasan wixii baa la geenaya burca si madaxweyne dhagax dhigay dema ama galashigaa wixii oo dhan la geen wixii oo dhan galashigaa la isugu keenaya galashiga burco ayaa liisan baasaboor ID kaarkii liisankii ganacsiga waxaasoo dhan galashiga burca ayaa la isugu keenaya madaxweyne dhagax dhigay laakiin muddo imika ku dhow 3 sano waxaa maxaabiis naga xidhan tahay laascaanood in xukuumaddiinan cusub ee halka sano jirta maxaa maxaabiisteeda ka qorshaysan waxa naga qorshaysan meel kasta madaxweynuhu waa la hadlay meel kasta wuu la hadlay hadday tahay yurub hadday tahay maraykan hadday tahay deriska hadday tahay etoobiya waxaa nooga qorshaysan in la sii daayo meel kasta waan u maranaa sii deyntooda meel kasta ma nihin dowlad fadhiyeeda dowlad shaqaynaysaana meel kasta waan u maranaa wada hadal ma lala furaya sida puntland oo kale heshiis lala qaatay maxaa loola furi waaya gogol baaba taalle gogoshaas taalle ka mid yihiin gogol way taallaa laascanada waa Somaliland saa ceergaabi gogosha loo dhigay ayagana lala furaya maxaa loola furi waadaha Somaliland weeydi waxaan maamulkan waxaan sheeganay waa bariga oo ahaaso way kama jiraan Somaliland lala furaya marka adigu laascanada hadda maxaa u tegi waaya maxaa u tegi waaya marka wada hadal loo furayna wada ka dhacdo maxaa u tegi waaya dhahar baaba la tegay ka fogay wasiirkii la midka dhahar buu tegay dhahar ma tegin gobolka Sool baad ka soo jeedaa laascano ma tegi maxaa u tegi waaya maxaa hor taag waan tegaya waa sida marka nabad ka dhacdo waan tegaya saa uu dhahar u tegay isagu waan tegaya waniga ciidankiina qarameeyay haddana waa hawshaad tijaartana waxaan u dirayaa dadka barakaca iyo dadka abaaraysan inay u kacaan oo wax taraan hadday raashin tahay hadday biyo tahay tijaartan u diraya tijaarta Somaliland waxaan u dirayaa dadka baahan ee Somaliland in wax la taro oo inagu isu tashanno oo wax siino oo biyo siino oo raashin siino oo aynu haddeer waxaan sameynaa qaar kale xitaa rarana qaar kale cusub oo dhowr boqol oo qoys aan rarana magaalada meel kamid oo aan dhul ba lahayn oo meel iska degan wadar xumaysan yaan rarana insha Allah kuwaan waa geenaa meel fiican oo maayirku bixiyey yaan geenaa kuwaan rarana waa wax xawaali bixisay ka sokeeya insha Allah kuwaan rarana maalmihii la soo dhaafay xukuumaddiina waxaa la arkayay idinkoo leh ictiraafkii baa soo dhow heese waxaa shidayseen wax weyn baa soo socda maxaa ka wadin si dhaqsaa loo soo socota ictiraafka waa arkaas in lala shaqaynayo yurub baa inala shaqaynaysa maraykan baa inala shaqaynaya dalalka dariska inala shaqaynaya ictiraafka si dhaqsan madaxweynuhu ballan qaaday inuu keenayo ictiraaf waana dee markaad iminka daawato baarlamaanada adduunka kii ingiriiska kii maraykanka waxaasoo dhan baa inala shaqaynaya baarlamaankii baa laga doodaya maraykanka waa dowladdii ugu weyn super power baa laga doodaya markaa hawsha aad bayna ku fiican tahay aad iyo aad hawshana ku fiican tahay wasiir xan baa ku jirta magaalada la leeyahay isku shaandhayn buu sameynaya madaxweyne ciro in ma laga yaabaa in isku shaandhaynta hore ay ku qaadato maxaa taas waa wax madaxweynaha u yaallay wax taaniga itaa la mid taasu su'aal xaq aad igu leedahay maaha su'aal madaxweynaha u taal waa su'aal nidaam dowladeedo nidaamka dowladeedna waxyaalahaas oo kale lagama jawaabo arrinta u dirayso shacbiga ganacsatada u diray inay isu tashanno dee wax wada qabsanno dowladda lala shaqeeyo amniga la ilaaliyo amniga waa in la ilaaliyo nabadda laga shaqeeyo nabadda la ilaaliyo labada ugaaska suldaanka suldaan siciid iyo ugaaska suldaan cabdirashiid suldaan doodi labadaana aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa nin nabadda ku suntan weeye nabadda ku suntay labada garaadadina markaa midaan nabad u direen maadaama suldaanka iyo ugaaska garaadadina soo dhaweynayaan gogosha loo fidin waa loo fidinaya waa la soo dhaweynaya waa madaxweyne 24 saac waa furan tahay buu 24 saac
ساعات وزير سلبان تعالى حكومتنا مالمين لصور دافع وحلو قول دليله إن شعب كرر سومالي لأن أي لحن نبيه في سومالي اللي هي ووضن كل اللي يخص بقوقات هرجيسة كتجا أردت أسألك سؤال ولا مقطع maxay noo muuqataa taata wasiir baan anaga noo qaabilsan Ethiopia waa fasaxda Imaaraadku waa fasaxay Imaaraadku waxa lagu soo dhoofiyaa bilaa EFC Ethiopia Europe bilaa EFC wasiirka fuadna aad iyo aad buu shaqeynaya حكومتنا ما لها واجبات maana gabil kuwan qaylinaya ee hadda qaylinaya ayaa waajibaadkoodii hore gabay umarna lahaa media kala Soomaaliya ikawa hal laga soo wareejiyay kuwii lahaa baa qaylinaya shaqadoodii gabay حكومتنا معاد بقى معملوش حافظة من يدكم معموله laakiin anagu anaga shaqeynade wasiirkuna wuu shaqeynaya wasiirkuna de weydii wuu shaqeynaya de aad buu shaqeynaya wasiirkuna faad aad buu shaqeynaya de لكن كم حد كقرش يسكت حكومة عصب waxaan nooga qorshaysan sanaga shaqeynay ma Imaaraadkan soo deeni Ethiopiana soo deeni Europe soo deysay waxaan nooga qorshaysan de dhameynaa hawshiba qaar hore hawshoodii gabay waa qaylinaya de oo mucaarad ha waa qaylinaya oo markaana xukuumadda ayaa qaylinaya de shaqada way qabsan kari waayay ama de si khaldan de u shaqeeyay هذا ما صدق ma ka cabanaysaa ubad la'aan allaa dhasha bixiyey Marwe Fertility Hargeysa waxaad ka helaysaa daaweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta tabaryarida ragga isku dheelitirka hormoonada tayeynta waxanta dumarka iyo sidoo kale daaweynta caada khalkhalka haddaba booqo xarunteena oo ku taala degmada 26 Juun gaar ahaan agagaarka Dadamiska